habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaan jeclaystay in muuqaalkan aan idinla wadaago waxa ku jirta xigmad aad u yar laakiin aan rajaynayo qof ama laba idin ka mid ah inuu wax uun ku kordhiyo. bari baa waxaa jiray nin ka shaqaynayay goob lagu gado hilibka ama xarun hilibka lagu gado. sida caadigood ka waraysaanna goobaha hilibka lagu gado fridge-ka ama qabowga aad baa looga taxadaraa. ninkan waxaa siri bal waxaad kormeertaa qolka hilibka uu ku jiro soo ogo sida xaaladiis ay tahay. qolkii marka uu galay ayaa waxaa ku xirmay albaabkii. si walba uu sameeyey uu ka furmi waayey albaabkii. qabowgana heerka loogu talagalay aad buu ugu sarreeyey si hilibkaasi uusan dheehiisa iyo dhadhanka uusan isu bedelin. ninkii oo 5 saacadood ku jiray xaaladana ku adag tahay ayaa inuu dhintana ku sigtay ayaa mar qura waardiyey xaruntu isiri bal waxaad kormeertaa dhismooyinka si aan ku talagal ahayn wuxuu u soo galay qolkii hilibka uu yiilay qabowgu ku shidnaa. saa wuxuu ku arkay ninkii saaxiibkiisa ahaa oo jiifo xaaladda ay ku adag tahay. marka waa iswareysteen wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay? wuxuu yidhi qolka ayaan kormeerahayey laakiin nasiib darro albaabkii ayaa igu xirmay. cid iga furtaa waan waayay. si walbaan u qayliyey waan ku dhibtooda meesha waana dhiban gaaray. adiga seebaad iigu timid? sheekada xigmadda halkii ku jirta waa halkan. wuxuu yidhi niyahow waan ku waayey. subaxdii markaa shaqada soo gasho waxaad samayn jirtay salaantaad nala soo mari jirtay. galabtii markaad bixaysana waxaad la dhihi jirtay habeen wanaagsan khayra idiin rajaynaya. marka salaantaadan waayey sidaasi ayaan isiri bal ninkii odayg ahaa ka wardoona xaaladiisa maxaa maanta loo waayey armuu xafiiskii ka soo bixi waayey. qol walbaan kaa soo eegay laakiin ugu dambayntii waxaan idhi bal laga yaabay in halkan uu ku jira ka wardoon. sidaasi ayaan halkan kaaga helay weliba oo dhibaataysan aad baan uga xumahay. ninkii sidaasi ayuu ku badbaaday. xigmadda sheekadana ku jirta waxa weeyaan iska warqabka marka la joogo goobaha shaqada, salaanta marka shaqada la soo galo ama laga baxayo, in dadka waardiyahaya, kuwa kushiinada ku jira, dadka xafiisyada jooga, maamulayaasha amaba team leaderska inay ka warqabaan subaxdii u yidhaahdaan bal xaaladiina ka warrama, nabad ku soo gasheen shaqada. laba faa'iiday leedahay inaad ka warqabto tiimkaaga iyo inay kaa warqabaan. ogaadana ninkaasi waxaa badbaadiyey waa salaantii oo rawaxitaankii soo gelitaanka u dhigi jiray. subax wanaagsan, assalaamu calaykum, la baryay xaaladda ka warrama ayuu ku badbaaday. qool yar oo wanaag waad samayso ayaa laga yaabaa inuu ku badbaadiyo. hadda u mahadsantihiin. fara muqdisho habeen wanaagsan.